bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada toban talo oo ku saabsan qaabka loo ilaaliyo caafimaadkaaga ama aad u ilaalin karto caafimaadkaaga. waa 10 qodob ayaan kusoo koobaynaa. qodobka ugu horeeya waxa weeye ku dadaal socodka maalintii ah. 2 qaado waqti yar oo aad qaadatid istiraaxo ama nasasho yar oo maalintii ah. 3 waxaad ku dadaashaa calaamitada qaab nidaam leh. 4 waxaad cuntaa ama qaadataa maalin walba qudaarta noocyadeeda kala duwan. 5 iska ilaali ama ka fogow stresska oo qofka ku dhaca. 6 iska ilaali sigaar cabista. 7 waa inaad habeenkii jiifataa muddo 8 saacadood ah. qodobka 8aad 7aad aan dhaho waa inaad qaadataa cunto isku dheelitiran oo wanaagsan. midda 9aad waxay tahay waa inaad noqotaa qof niyadsan oo haddana dhoola cadeeya had iyo goorba. midda u dambaysa waxa weeyaan waa inaad cabtaa inka ugu yaraan 8 glass oo biyo ah maalin walba. aad u mahadsantihiin. meeshaad igala socoteen waxa weeyaan waa Warta Media Channel. aad ay u mahadsantihiin asxaabay. si aad u sii heshid waxyaabahan iyo waxyaabo kale oo la mid ah please subscribe sar, like na sar, commentina igu reeb meesha wixii aan ka hadlay, waxyaabo aad iga saxaysaa jiraan iyo waxyaabo kale iyo talooyin. aad ay u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربي.